mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wadani u horkacaya gudoomiyaha xisbigaasi mudane cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro oo kulan warbaahineed ku qabtay maanta magaalada Hargeysa waxay markii ugu horeysay si adag uga hadleen colaadda soo noqnoqotay ee beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex marayso deegaanada Ceelaf Weyn. ugu horeyn kulan warbaahineedkan ay qabteen mas-uuliyiinta xisbiga mucaaridka ah ee wadani waxay si adag uga hadleen colaaddaasi soo noqnoqotay iyo beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex marayso deegaanada Ceelaf Weyn iyagoo xukuumadan dhaliilo u soo jeediyay waxayna sidoo kale baaq u direen beelahaasi ku dagaalamaya deegaanada Ceelaf Weyn. waxaanu ka xunnahay dhacdada foosha xun iyo dagaalka sokeeye ee inta badan soo noqnoqday shalayna saddex goobood oo ka tirsan deegaankaas dib uga bilaabmay sabab la'aan macna darro iyo dhiig walaalaheen oo si fool xun oo aan la qiyaasi karin u daadanaya xukuumadda waxaanu leenahay adaa laga rabaa inaad tallaabo ka qaado asxaabta qaranka iyo waxgaradka iyo culimada iyo cuqaasha iyo salaadiintu baaq nabadeed iyo gurmad nabadeed un bay leeyihiin inay kaga qayb galaan laakiin xukuumadda waxaa looga fadhiyaa oo laga rabaa inay cudud iyo go'aamo adag ay ka qaadato ay ku kala joojiso dhiigga macna darrada u daadanaya shacabka. waxa weeye madaxweynihii dalka hogaaminayay waxa mas'uuliyiinta qaranka mas'uuliyiin looga dhigaa inay dadka ummadda wax weeyaan hogaamiyaan oo ilaaliyaan inay ummadda hogaamiyaan oo ilaaliyaan oo dhibtooda ka ilaaliyaan oo dhibtay isu geysanayaan ka ilaaliyaan wax kasta oo badhaadha iyo barwaaqo u gaadhan iyaga mas'uuliyadda qaado horkaca wax kasta oo dhib timaadana iyaga ka mas'uul oo dhakada ku qaada. waxaan leeyahay madaxweynaha oo baaq jeedinayay iyo xukuumadda baaq jeedinaysay baaq kuma filla baaq la idinma dirana waxa la idin dirtay inaa gacmaha qabataan awoodda qaranka waxa la idinku dhibay inaa u isticmaashaan oo joojisaan oo dhibta qabataan. aad baan runtii uga xumahay inay iyadoo soo noqnoqotay waxa la qabanayaa aad u yar yahay. dhiigga iska daadinayaan qarankii Soomaaliyeedna wuu dhiig baxaya kaligoodun ma aha dhammaanteen waynu dhiig baxaynaa. gobolkaas Sanaag waa gobol fog waa gobol ka hadhay horumarkii waa gobol ka hadhay mashaariicdii dawladda waa gobol u baahnaa maanta in la baritaaro oo sare loo qaado. waxa muuqata inay boqonihiis goynayaan. waxa weeye dadka walaalaha ah ee wax aliyaal wax kala yaan aanay jirin ee dhowrka jeer saas ay u dhacday waxa la rabaa xukuumaddu inay tala adag ka soo saarto oo waxa la sultaan baa laga dhigayaa horta anagu sultaanku horeeyanaho garaadaba uu guuray imika haddaanu salaadiinta horanahay sababtoo wax weey 7 sultaan bay lahaayeen Soomaaliland 7 garaad bay lahaayeen 7 ugaas bay lahaayeen imika waxay noqonaysaa tusbax loo furo ha yeeshee waxa weeyaan salaadiinta la sheegaya midkoodna waxa ma tarayo waa salaadiin wada beena hadday aqal leeyihiin oo rag yihiin waxa weeyaan inay gurmadaan Hargeysa loo fadhiyaa. ugu dambeyntii gudoomiyaha cabdiraxmaan maxamed cabdilaahi ciro gudoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee wadani oo isagu halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeyntii baaq u diray beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex maraysa deegaanada Ceelaf Weyn waxaanu sidoo kale xukuumadda ku dhaliilay inay ka gaabisay sidii ay waawaan uga geli lahayd beelaha walaalaha ee dirirtu ku dhex maraysa deegaanada Ceelaf Weyn. waa ayaan darro runtii aad baa ayaan darro u tahay in muddo 3 sannadood ka badan oo inagu soo noqnoqdo dagaalkaas ahliga ah ee ka jiray degmada Ceelaf Weyn. anigu Sanaag waxaan ka imid wiil ka hor iyo wafdi ballaaran oo xisbiga wadani waanu soo maray dhammaan deegaanadaas colaaddu way muuqatay shacbiga wadooyinka qoryo la taagnaayeen ciidanka ammaanka ee Soomaaliland halka joogay aad bay ugu warwarsanaayeen in any minute uu dagaal dhici karo. sito waa loo baahnaa quwadii xukuumadda inay adeegsato waa loo baahnaa. waxa kale iyaduna la yaab leh in madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland oo isna shalay yiri baaq baan diray hal daqiiqo ka yar waxay la tahay madaxweyne kale waddanka ma ogin xukuma مسيلان يودك حكومة ولي هدو مدحونو باق درايو ولي
amar baa la rabay inuu diro shalayto amar liibaan cismaan cali telefishinka Ariel Hargeysa.